وفكر دولة له آدنا أفافية وعي درضي أقون درض أهل السنة أنا كفى إلي سنة أول دولتين نكوس عضاء دول بدنوا أهل السنة لهايين بيلوريجين عراق أهل السنة إسكالها ويلوريجين يمن ويدينك أركي هذا حوثيين تبى لوريجين سوماري محو هاي سوريا إسكده سوريا هو علويين بالي نصيرية لده أصل كود الشيعة ويجينا قلنا حافظ الأسد أسد كان المسلمين توادوا الجمادي تشري الروش كله حدي أيقون أصل كود الشيعة والنصيرية لده هذا علويين نوالي هذا سومارت مركا وحاضر كيسان إنه وشيعة إسكوب بحذي ونورك مسلمين تقبضتي مسلمين أهل السنة هنا الجمادي يواه marka dhanka kale waa fikir faafayo dawladii ay taageersanto dhaqaale la garab taagantaa baynama ahlus sunnaha dawlad hadda u xaydatay inay fikirka ahlus sunnaha dawlad ahaan u faafiso ma jirto Soomaalida kar yani wax weey dawladaha qaar kood baa la yiraahdaa laakiin diblomaasiyan dawladdu siyaasadda ilaashata midda waxoogaa dacwad sunnada yara faafisana waxoogaa bay ku turturtaan mooyaan laakiin wax weey sida ay isugu qaawisay Iran inay fikirka shiicada faafiso dawlad sunniyo isu qaawisay ma jirto inay fikirka sunnada faafiso oo diblomaasiyan safaaradaheedu faafiyaan oo muxuu ahay ay hay'adka diblomaasiga u shaqeeyaan oo dawladdu u shaqeyso oo meel walba xoog lagu geliyo sidaas dawladdu u istaagtay way yartahay waxaad ku garanay waa hore waxaan garanayaa 80 iyo 88 intaanaan jaamacadaha aadin magaalada Nairobi masaajidkan ku yaala section 7 fanya bidii baa loo yaqaan hadda qolo Soomaali baa kor ka dhisato oo guriga ka dhisato Allahu musta'an masaajidka waxa hayn jiray oday muxuu ahay Kenyana joogi jiray maalinka arbacada iyo maalinka jumcada bay ku xadreyn jireen wadaadadu maalinka ay xadreynayaan waxa uu imaan jiray safiirka Iran ee Nairobi fadhiya anaga Nairobi baan joognaa masaajidka waa ku tukan jiray markuu u yimaado xadradoodu fadhiisan gadaal buu fadhiisan waa safiirkii dhanaa ee Iran ee u fadhiya magaalada Nairobi ma aha qunsul ma aha mana aha muxuu al-mulhaq al-thaqafi ma aha waa safiirkii dhanaaba imaanay masaajidka soo fadhiisanay meesha aragteen kijijiga wala soo fadhiisan uu dhageysan markii xadradooda ay dhameystaan oo fadhiistaan iyo xoogaa shilima asiin uu ka tagi baawurkiisu ku noqona idinka xageed ku aragteen safiir carbeed oo masjid darsi ka socdo intuu soo fadhiistay dadka sunnada faafinaya dacwada faafinaya intuu wax yar la soo fadhiisto kadibna taageero u muujiyo xageed ku aragteen ma jirto xarunta weyn ee hadda markiiska thaqaafiga magaalada Nairobi dhexdeeda ku yaal ee Iran ay leedahay waxay hoos tagtaa safaaradda Iran bay hoos tagtaa xaqiiqo waa meel walba marka waxa gelinaya fikirka shiiciga waa dawladda garab taagan safaaradaha garab taagan waa waajibaadkooda ka mid ah aridaas marka waa arrin qarsoon waa mid keentay inay wadamo fara badan oo horay aan fikirka shiicigu uga jirin inuu waayahan dambe si tartiib ah ku galo haddaan Soomaalinahay qayb baan marka qayb baa inaga soo gaadhay dhowr siba way inagu soo galeen waxay inagu soo galeen waa dhaweyd magaalada Muqdisho waxay ka furteen meel ay ku magacaabeen clinic ama xarun caafimaad waxyaalaha ay ku gabadaan gabaad bay ka dhigteen kadibna waxay bilaabeen dhalinyaradii wiilal iyo gabdho inay ururiyaan oo shiiceeyaan marmarka qaar kood hay'ad samafal oo wiilashii gabdhaha isu guurinaya kharashka laga bixinaya xaflado waxa loo sameeyay wiilal iyo gabdhaha la isugu guurinaya magaalada Muqdisho ka dhacday wakii markii dambe culimadu ka kaceen dawladdu ku baraarugtay xafiiskii meeshii la xidhay xaruntii laga xidhay laga saaray laaqan xusuusataan dhinaca kale waxay naga soo galeen dhalinyaro fara badan ayay kaxeeyeen Iran geeyeen jaamacada ku jira gabdho Farisiyaada loo guurinayaa intay jaamacadaha dhiganayaan bay la seexanayaan xaasas u ahaanayaan wax la yiraahdo waxa jira muxuu ahaayay waxa jira la yiraahdo mut'a hadaad hal bil Iran soo joogayso gabadh Farisiyada qurux badan baa lagu siin halka bil iskala seexo hawlahaaga ka gudo
markaad soo baxaysana wabillahi tawfiiq waxoogaagay aad ku heshiiseen uu iska sii kadibna diyaaradaada soo raac waa caqiidadooda way mutca la yiraahdo wiilashii yaryar ay dhalinyaradii marka la geeyay Iran jaamacadaha u aaday gabdho farisiyaad ay muddada la joogayaan oo la soo shiicaynaya kadibna ayagoo shiicoobay oo dhaqaatiir iyo aqoon-yahan iyo siyaasi la soo celinaya Soomaaliya dhanka kale waxaa jira dhalinyaro badan oo dadku iska baahiyeen inta la qaaday boodhina loo sameeyay inta badan dadka hawshaasi ee ku saamoobay waxaa laga kaxeeyay kililka shanaad deegaanka Soomaalida Ethiopia laga kaxeeyay waxa la ii sheegay oo nin xoogaal oo soo arkay ii sheegay Iraq dhexdeeda magaalada Baghdad qayb kamida inay xarun ku taalo wuxuu ugu yiri 20 dhalinyaro ah oo dawlad deegaanka xaggeeda laga keenay baa ku xareysan nin Soomaaliya mas'uulka oo halka ka yimid kharash baa lagu bixiyaa dhalinyarada waxba la barayaa markii wax la soo baray kadib si qarsoodiya la doonayaa marka in deegaamaday ka soo tageen lagu celiyo arintaas goormay bilaabatay waxay bilaabatay markii ay Ethiopia majlisul aalaheeda golaheeda sare golaha arrimaha diinta ee sare federaalka markay qabsadeen nimanka la yiraahdo ahbaashtu waa shiico kadibna hogaankii arrimaha diinta Ethiopia oo dhan bay la wareegeen Soomaalida magaalada Jigjiga majliska qoladii matalaysay ayaguna ahbaash bay shiico ahaayeen sidaas ay marka waxay ku galeen inay dhalinyaro fara badan ay kaxeeyaan ragga matala waa la yaqaan waa hebel oo kulli la wada yaqaan waa mar qarsadaan idaacadayeed meel walba ka hadlaan telefishinada ayagoo Karbala iyo meelaha wareegayad arkiyo leh baartay waan soo shiicownay oo hebel baan ahay oo Soomaali baan ahay media hayba soo dhigeenba halka way marka dhalinyarada meesha laga qaaday meesha hadda lagu soo tababarayo waa sida si qarsoodiyo marka fikirku u socdaa oo Soomaalida u galaya tartiib markay koox awood la noqdaan marka kadib ay doonayaan marka inay ismuujiyaan inta ka horeysa waa madhab hoos u socda لأن الشعب كصومالي ما دام شعب سني يهي ويأذكته مركو ugu horeysa in la hor yimaado saxaabada caydoodiyo Aisha caydeeda iyo way adagtahay Soomaa marka waa in loo gabado waa in dhaqaale la geliyo waa in dhalinyaro la kaxeeyo waa in la soo taatiiriyo waa in si tartiib loo geliyo ilaa ay koox xoog badan ka noqdaan warka maxaan u galiyaa tafaasiisha u galay darsigeenu nacaaw inta uga dhigay waxaan uga dhigay waxaad ogaanaysaan halista in haysato dadna Soomaaliya afkaar fara badan oo ummadda wax ka ilaalinayaba ay yar tahay oo dawlado iyo nidaam iyo muxuu ahay andimadani ayna ama ku baraarugsan ama dan kala hayn ayaa ummadda ku socda oo caqiidadeedii iyo fikirkeedii iyo diinteeda bedelay rag hadda aan sheegay kililka shiicada kaga xidhmay markii horena muxuu ahay nimankaasi ahbaashta ku ta'athuray intooda badan waxay ka soo jeedaan dariiqooyinkay ka soo jeedaan warag asalkoodii dariiqooyinka suufiyada qaar kamid ah kadibna ama hunguri u geeyay ama fikirka ku ta'athuray ayagii baa marka ka shaqeynaya oo hawsha wada macna marka in sida loo ogaado oo la ogaado caruuraha meelaha loo dirayo xagee la geeyay caruuraha loo dirayo jaamacada loo diray leeyahay xagee la geeyay dhaqdhaqaaqa iyo muxuu ahaayay waxa socda laga warhayo ummadda caqiidadeeda iyo diinteeda loo ilaaliyo waa arin laga maarmaan ah inta aad ummadda adduunyadeeda u ilaalinayso waxa ka muhiimsan inaad ummadda caqiidadeeda iyo diinteeda u ilaaliso haddii shiica laga ilaalin waayo wadanka iyo dadka laga ilaalin waayo berri waxa soo bixi doona Soomaali xuuthiyiin ah ya Soomaali berri waxay isu leeyin doontaa sunno iyo shiica isu leeyin doontaa يا وفكرا هذا جرين وفكرا أمده كده جرين لكن عرب وحمان تهيستو إن الشيعة يصنع ما أنت اللي سبع بيا بالريبو إيمان دونا هذا الصومالي ده اللي جارين فكر كان شيعي كان لجوه هرتجين أنت هذا إن هيستا إنه قفلا بلايك هذا إنه سوق الشكور يا هذا خوارجي بلاي وح قرحي وح دين وحرا إنه جرا لكن شيعة ده يقصوا بيرتكور أو اعتقاد كودبا ويهيبة قال إني ديلان وقام مهم سنتها إني أهل السنة ديلان
adiga inay ku dilaan ahlu sunnaha baa uga muhiimsan gaal ay dilaan gaalna ma baadaanba sidaan hore u soo sheegnay adiga inay ku dilaan baa ka muhiimsan inay gaal la dagaalamaan ama ay dilaan fikirkaasi marka waa amnul qawmiga wadanku taabanaya ma inay tahay wadaado iskhilaafsan oo waxoogaa on fikradihiisa iriyeen jiray ma laakiin wuxuu taabanayaa amniga dadka iyo dalka iyo diintu taabanaya waa in marka si wada jir ah madax shacab culimo caamo lagu baraarugsanaado oo fikirka shiiciga umada laga waardiyeeyo nimanka la yiraahdo raafidada ama shiicada aalu baytka ayagu macna kale ka rumaysan si kaleena ka rumaysan shiicada asal ahaanba fikirkan shiicada la yiraahdo bilowgiisii waxaa bilaabay niman zanaatiqa ah oo diin laawayaal ah oo nin yahuudi iyo cabdullaahi la dhihi jiray ibnu saba oo munaafiq ahaayo islaamnimada intuu muujistay ku dhuumanay kadibna inuu islaamka dumiyo oo isagoo isku qarinayo muslim iska dhigay islaamnimada dumiyo ku talagalay nin noocaas ah sidoo madhabka shiicada bilaabay masaadirta shiicada laftooda in badan oo kamil ah qirsan oo diidanayn cabdullaahi ibnu saba inuu bilaabay fikirka shiicada nin yahuudi asligiisu iimaan sheegtay laakiin ku talagalay inuu islaamka hoos ka dumiyo gudaha ka dumiyo waxa gabaad ka dhigteen marka si uu islaamka u dumiyo ugu gabado aalu baytku marka gabaad ka dhigtay xuquuqdii aalu baytkii baa la dhacay aalu baytkii baa xaqooda la soo celiyo aalu baytkii la raadiyo yaa dhacay Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman yaa dhacay aalu baytka xaq laha nabigu markuu dhintay iyaga dardaaran lahaayo xilka iska laha xilkii baa laga boobay isaas daraadii xilka loo soo celiyo waa inaan u gurmano halkaas ka galay muslimiinta qalbigooda maxaa ku weyn muslimiinta qalbigooda waxa ku weyn aalu baytka nabiga iyo jacaylkooda Soomaa halkaas marka ka galo gabaad ka dhigtay markaas wuxuu abuuray xaalad la yiraahdo aalu baytkii baa dulman ya xaqooda hal raadiyo yaa laga raadinaya saxaabada intoodii kale Soomada gaar halkaas marka wuxuu ka abuuray nacaybkii saxaabada la dagaalankii saxaabada gaalaysiinta saxaabada laana waxa weeyaan aalu baytkii baa dhaceen buu taagay halkaas marka shiica ka abuuratay shiica marka gabaadkeedu waa aalu bayt yay u taqaanaa marka aalu bayt shiica yay u taqaanaa aalu baytka inaga Soomaynaan soo dhihin aalu bayt waa nabiga qaraabadiisii iyo rumeeyay iyo maxay soo nidhi iyo xaasaskiisa Soomaynaan soo dhihin oo quraanku tusaya ayagu u yaqaanaan ayagu aalu bayt waxay yiraahdaan nabiga aalu baytkiisu waa Faadimo iyo Ali iyo Xasan iyo Xuseen inta markay joogan kadib waxay raacayaan Xuseen bay markaa sii raacayaan Xuseen wuxuu dhalay caruur badan caruurtiisa waxay kala baxayaan in la yiraahdo Ali ibn Xuseen Ali bay kala baxayaan Ali caruur badan buu dhalay kadib waxay kala baxayaan in la yiraahdo Maxamed al-Baqir caruur badan buu dhalay kadib waxay kala baxayaan in la yiraahdo Jacfar as-Sadiq caruur badan buu dhalay waxay kala baxayaan in la yiraahdo Musa al-Kadhim waxay kala baxayaan Ali al-Ridha محمد الجواد بكلاس بحيا علي الهادي حسن العسكري المهدي المنتظر متكلم يتبنات بهالك كوي معنى إمر سلسلة أئمة الرميسيين اللي يدهدون لبيه طبعا كإمام ساس إمر كوكيانا سمارد كان قدام بهي اللي ده المهدي المنتظر حسن العسكري قا قدام بهي أي ليه هو ضلي سقو يربع لواي كتبو قلي قدكو قليبو كسو بخي دونا آخر الزمان مركو صوبحانا أهل السنة اللين دونا وحال اسكو هيا حسن العسكري هو طويل مر علي مش مر علي هادو دليسه ilmo ilaa inta soo yar god galay ilaa maanta ku jira ilaa akhir zamaanka soo bixi doono godkii ku qarsoon xagee godkaas ku yaala adduunka hadda taaka loo arkay xagee ku qarsooyay waa meesha yiraahdaan shiicadu firqada diinta ku abtirsatay sheegata way ugu axmaqsan yihiin firqa ka nacsan oo ka aqli yar ma jiro khuraafaadka rumaysan yihiin marka silsiladaasi ku keenaa آل البيت هذا مغشوا عند الشيعة وسلسلة داسوي مرك
سؤال شيء سويدين تلا واحد تامرك آل بيت كنبي قرابدي سي محي علي كجد دورتين أنت كلا وقت تجين سؤال سويدين لما علي عرور بدن بوردلايه محي حسن إيه حسين وقت دورتين وأنت كلا وقت تجين سما حسن إيه حسين هذا يقول دورتين فاطمة رشوا النبي قبل نسائه حسن إيه حسين محي كوك على فضلين حسن بكويناه حسن بان لبضوا فضل بنا لماذا حسين يوقاتين حسن وقتين يا عرورتيس وحو دلي حسين marka loo yimaado حسين wuxuu guursaday 5 dumar uu guursaday caruurna way u dhaleen shantii afar kamid ah caruurtoodii way ka yimaadeen hal mid ah oo wiil dhashay bay ka qaateen halka mutaqana halkaasi waa islaam farisiyad ahayd oo la dhihi jiray shahrabano ama waxa la yiraahdaa shahrabanuya ama banuya waxa dhalay ninkii la dhihi jiray yazdajir al-thalith boqorkii furus saddexaad yazdajir la dhihi jiray ayaa dhalay gabadh boqorad ka soo jeeda qoys boqortooyada ka soo jeeda waa la soo qafaasho muslimiintu markay furus furteen oo ay qabsadeen dadkii la soo qafaashay bay ahayd kadib waxa guursaday حسين باغورسدي حسين مركي غورسدي waxay u dhashay Ali ibn al-Husayn Zayn al-Abidin waana silsilada aimada meeshay ka bilaabayaan waxa fahmi kartaa marka Ali caruurtiisa kale dumarka kale oo dhan afartaba carab bay ahaayeen halkii haweeney farisiyada ahayd wiilkay dhashay bay raaceen meesha marka la leeyahay mas'aladu diineed meehe مسألة ومسألة عنصرية إيو فارسية واي ولي يقولون إن مجاز عاو حيكون أهين إن عربت النعبيين عربت لأن أصلهان دين تمحوي أصل وحوي إن عربت كسو جد صومها إن اللي بقرطوية دي فرص إسلام كبربرية إسلامية إن يديبوا سعوديان عقدة هذه قبين تاسع وحي كان تمرك إن حسين حتى عروتي سي دوركي أي دلنا تيوض الطوران أي سوقاتان هوين دي فارسية ده هيدي ويل كي الشيء هل كايد مركا كرعان واحد اللي يلاهدو أئمة كدي ابن حسين يود علي هل كاي كسر راعة مسألة سوارك ومسألة الماما يسها يعني مذهب كان شيعي الرافضي محاي محويه مركا هل كان لتشوقو اللي يلاهدو علي زين العابدين هل كان وحا كقال لي حنا يقو كوح يجا كمدا ولمن كان زيدية اللي يلاهدو يعني لي حنا يوشي هذا كمدا marka la joogo Maxamed al-Baqir ama Jaafar naqola ka go'ays Jaafar Sadiq marka laga tago dadku dhal Ismaaciiliya baxaysa marka nimanka Ismaaciil shiicada ama marka leexan doona oo Muusal Kaadim iyo Ismaaciil bay ku kala leexan doonaan marka meel walba ay joogaanba way kala go'ayaan qolaasi go'ays silsilada marka 12 imaam ah waxa iska leh raafidada la yiraahdo 12 oo hadda Iran hogaamiso oo Xuuthiyiintu kamid yihiin وقولنا حزب الله أي كم يدين محوها لبنان وكون العراق هذا هيستكمل يدين كل الرافضة واحد أبتلكوا ده هالكاسو كلامه أنت أمرك إنه قرنا كذب ما حين جد وين أنا قدان أهل السنة ما حين جد وين وحين جد وين وحي قبان هرتا إمدا أنجو آل بيتك وحنون قانا قرابة النبي قردن يحاسسك صوما أيجو آل بيت وحيو يقانان قرابة النبي قار كم يدين إلى الصبحان أو كون هذا الشيء نه وحكوا الروميسيين كوا يجوا للصبحان إن معصومين علي إيو حسن إيو حسين إيو أئمة ضد حتى كوا الضمبة إن معصومين أهايون إن خلدمين بل وحي الروميسيين إنه وحي أيماده وسيد النبي ذو كلاء وحي الروميسيين إمام نمضوا إن النصطح وإن اجتهاد يدور شاء هينه وحي حق الرب كيمد وكل بنينك تشوق الله وحيونه يو إمام لك قد جايا وحي رميسيين إمام نمضو هي إن الرميين علي إمام كني محمد كوحي جايه كدب السلسلة والصداع أيتها إمام نمضو النوع عاس إنه كم يتاه تيرر كإسلام تقوم يمسن وهذا ساء الرمي وإذا إنها قالتها وأنا تي مسلمين تكو قاليسيين صحابتي غيركم تكو قاليسيين أنا كم حقنا أركان الإسلام كم يسوي يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صوما
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت صومه أيها وحصل تيرك كم مهم سماحوي إن أترميسو علي إنوها كي حلك لها مركو النبي قول انت صلى الله عليه وسلم كدي من السلسلة ضوضاء أيها أي سمية إني راعيسو هذا سأل رميوي بقول قر هذا شهادته تكتو قلبت ولي قاب أشهاده وصلاتكم ووجهكم بدو بعد marka imaamadu agtooda waxay kamid tahay rukni kamida arkaanta diinta Soomaali arkaanta ugu muhiimsan bay kamid waxa kamida midalan aimada ay iyagu sameeyeen silsilada waxay leeyihiin qaybkay rumaysan qaybkay ogsoon yihiin wax arshiga yaala wax ilaahay agtiisa yaala waxba kama qarsoona waxay rumaysan yihiin saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam inay gaalo yihiin maxay ku gaalaysiin saxaabada waxay ku gaalaysiiyeen waxay leeyihiin nabigu markuu dhintay xilka cali baa lahaa waa laga boobay oo yaa ka boobay Abu Bakar iyo rag iyo Umar baa marooqsaday oo baashi ka boobay haday xilka boobeen gaalo way diinta way ka baxeen way ridoobeen saxaabada nabigu marka agtooda gaalay ka yihiin waxa kamid ah bal iskaba dhaafe in ay saxaabada nabiga caayaan oo aflagaadeeyaan oo ilaahay ugu dhawaadaan wax ka sheegood iyo lacnadooda waa kan soo sheegnay tubtooday ku qorantahay gaar ahaan shaykhaynka Abu Bakar iyo Umar inay caayaan aflagaadeeyaan ku wardiyaan lacnadooda laana waxay rumaysan yihiin inay diinta ka baxeen oo gaaloobeen waa kan soo sheegnay silsilada imaamiyada ee ay iyagu samaysteen ee 12 inay macsuumiin ahaayeen qaybkana ogaayeen waxyaalo fara badan baynu marka ku kala duwanahay shiicada marka kuwa waay ahlul bayt waxayna daliishanayaan marar fara badan oo ay u daliishanayaan quraanka aayada ay macnahooda leexinayaan ee ahadiis kutubteena ku taala oo ay soo qaadanayaan laakiin macnaha ay leexinayaan arinta marka in la ogaado waxaan ugu dheeraanay in la ogaaday u baahanta oo si fiican loo fahmo gaar ahaan waayahan halista ahlu sunnaha haysta waxa ugu halisan fikirka shiicada waa hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi